cisbitaalka dhimirka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Maandhaye waa cisbitaalka kaliya ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunsanaya waana cisbitaalka kaliya ee ka dhisan gobolkan haddaba xilli uu maanta telefishinka caalamiga GTN uu qalab qaatay sidoo uu indhayn lahaa xaaladda guud ee cisbitaalka ayaa waxa uu la kulmay dadka xanuunsanaya oo xaaladooda nafsiyeed iyo sidoo kale nadaafadeed bay aad u wanaagsanayd haddaba agaasimaha guud ee cisbitaalka Dr. Cabdi Xasan Xaaji Cali xaaladda guud ee cisbitaalku ku sugan yahay sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in la tacaalo dadka xanuunsanaya marka ay ka baxaan isagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana waxa kamid ah hadaladiisii inta ka bacdi halkan waxa weeyaan Maandhaye Medical Health Center waxa weeyaan cisbitaal ka shaqeeya dadka maxay dhimirka wax ka qaba wax la aasaasay ugu horeystiisii 2008 markaas oo lagu aasaasay inuu ahaa daycare clinic oo qayb yar oo ah maxay dadka laga siiyo dawooyinka markay gaadhay 2011 ayaa waxa lagu daray qaybta inpatient iyo outpatient ilaa iyo xilligan oo shaqeynaysay waxa ka kooban tahay qayb bukaan socda oo halkan aanu dadka ku qaabilo aanu sameeyno dawooyinkeedii waxa aanu siino ma qaybna waxa weeyaan qayb dadka culus ee marka aad ku xanuunsanaya inaanu dhibno qaybtan hay'adaha gudaha marka waxa la sameeyaa markaan qaybta dhigayno waa inaan waxaan sameeynaa dadkii maxay ahayd family-gina ay la joogaan oo ay meesha la hayaan si family-gina aan ugu barno sida marka dambe oo naga baxo ay ula maxay ahayd ula qabsanayaan Maandhaye waxa gacanta ku haya wax weeyaan qayb kamid ah oo isbitaalka weyn ee Burco waa qayb kamid ah oo ka soo hoostaga laakiin sidiisa kale iyo maamulkiisa iyo xiisa ugu madax banaan yahay dabcan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waxa weeyaan isbitaal kamid ah waxa kale oo jirta in ay dadweynaha ama hay ahaadaan gudaha ama ha ahaadaan maxay ahaydeen dibadda dadkeena maxay ahaydeen ku maqan dibadda way caawiyaan oo maxay ahayd waxbay u keenaan sida cuntooyinka maxay ahayd dhaqaalaha xilliyada maxay rabadaanta oo kale dadka isla maxay ahayd dadka gudahana way caawiyaan markaas dabcan waxaan oran karnaa waxa weeyaan waa meel wada leeyahay oo la wada ilaashanayo oo haddii ahaato bulshadii haddii ahaato maxay ahayd dawladdiiba saasan gacanta u hay kulli dabcan maadaama aanay hay'ad caalamiya aanay gacanta ku haynin oo aanay dawooyinka noo keenin dawooyinkuna ay yihiin dawooyin ama dadkaas lacagta ay noo keenayaan aanu ku iibino ama wax yaro lacagta ay wasaaraddu noo siiso lagu soo iibiyo kulli marmarba waxa dhacday inay dawooyinku kala go'aan laakiin taasna maxay insha Allah kulli dawlad cusub ay noo dhalatay oo sanad cusub ay mid wax laga yaabaa inaan insha Allah ka baxno imanka waxaan u direynaa Maandhaye waxa weeyaan waa isbitaalkii dadka waalida maxay dadka waalidana waxa weeyaan dadka ugu jilicsan ee aan cid u hadashay aan hayn ee aan garaneyn inuu xanuunsanayo dadaalkii markii hore loo hayay ama bulshadu haysay ama dawladdu u haysay hal maxay hal soo maxay hal badiyo waxaan kale oo aan leeyahay ha laga kafaalo qaato si ay dawladdu nooga kafaalogeyn qof xanuunsanaya aanu eegno waxyaabaha ugu farabadan waxa weeyaan qofku marka aan halkan ku daweyno ee uu naga baxo inta badan wax laga yaabaa in aan dib u soo noqonaanay dadku aanay aad u soo celcelinin waxa kale oo jirta bulshadeenu qofku marka uu baxo oo mar xanuunsado wax laga yaabaa in aanay si wanaagsan loo dhaqmin marka qofku ay isolate noqdo oo kaligii uu noqdo oo meelahaas fadhiyo haddana wax laga yaabaa marka daweysankii caadiga ahaa ka baxay 2 bilood ama 3 bilood ka bacdi isagoo culus oo xanuunsanaya in lagu soo maxay ahayd lagu soo celiyo taasna inta badan wax leeyahay waxa uu sabab ah sida aynu la tacaalo ama sida aynu u aragno maxay ahayd dadkeena ay u dhaqanka ay kula ramaan dadka waalan ayaa aad u dhib badan kaasna waxaan leeyahay laga daayo ugu dambeyntii cisbitaalkan ayaa bulshada ugu jira kaalin muhiim ah oo Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco